waxaa dhacday cishooyinka ka mida iyadoo inantii fircoon timaha u fidhaysa ayaa waxaa dhulka kaga dhacday shanladii ay timaha ugu fidhaysay iyo waxay timaha ku hagaajinaysay mid ka mida markaasay gabadhii waxay tidhi bismillaah shanladii waa ta iga dhacday inantii yarayd baa waxay tidhi in la aqalkooda waxa jooga iyo arrinka yaala boqortooyaday ku garaadsatay allaha aad sheegayso ma aabbahaybaa ila isagaa ku yidhi dadka ana rabbukumul a'la anigu rabbigiinnii u sarreeyey rabbiyadaana maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaahan aniga ahayn waan idiin garanaya oo aad leedihiin maba jiro ma aabbahay baad sheegaysaa bay tidhi markaasaa waxay tidhi inantii timaha u fidhaysay maya ma sheegayo hadda ayaad sheegaysaa waxay tidhi aniga rabbigay iyo aabbaha rabbigii iyo dadkoo dhani waa allah haddaba waxay tidhi aabbahay baan u sheegaya haddaad saad sheegtay haddaad ilaahan aabbahay ahayn maanta sheegtay aabbahay baan u sheegaya u sheeg bay tidhi dabeetana odaygii bay u sheegtay fircoon ahaa oo dhaballisanayo halkan fadhiya oo isu qorsheeyey ilaahan jirin oo beena inuu yahay ummaddana ku gumaysto u sheegay iigu yeedha buu yidhi inanta aqalka joogta waa loo yeedhay ma adigaa hadalkaa yidhi ilaah aan aniga ahayn miyaad sheegtay markaasay tidhi haa rabbiga iyo rabbigaaba waa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaasuu wuxuu yidhi dab ii shida riwaayadda xadiidku waxay leedahay wuxuu amray in dab loogu shido bibaqara ibnu asiir markuu fasiraya wuxuu leeyahay laba micnoo waa suuragal dheri weyn oo sac hilibkii kariya inuu yidhi dabka ha la ii saaro waa suuragal dab weyn yacnii foorno ka samaysan suuradda dheriga suuradda dibiga ka samaysan in suuraddaasi ay tahay wuxuu wax ku cadaabi jirayna labadoo waa suuragal adigu wuxuu yidhi dabkaa oogta ha la ii shido dabkii baa loo shiday iyada iyo ubadkeedaba keena buu yidhi waa la keenay halkaasar u soo fadhiista markaasaa waxay ku tidhi hal codsi baan leeyahay dan baan kaa leeyahay halkaa codsi ma ii yeelaysaa markaasuu tidhi waa kuu samaynaya maxaa tahay codsigaada waxaan kaa codsanayaa aniga lafahayga iyo lafaha ubadkayga markaad gubto ha qubine intaad uruuriso mare ku riddo naxabaaloo godna gu rid waa sahlanta biil waa samaynaya haddaanba ku gubay maxaa ka micnaa ilmaheedii baa iyadoo arkaysa marba mid baa dabkiisaa loogu ridaa markaasuu mar qurasaa u googo'ah markii la soo gaadhay kii ay xambaarsanayd waa hooyo wax dhashay ayay taqaacasad dib bay u soo yara guratay inankii baa markaa la hadlay dhabarkeeda saarnaa waa afarta qolo ama afarta qof ee nusuustu ay sheegtay ee sabinimada ku hadlay nebi ciise iyo inankaas nusuustu ay sheegtay nebiyullaahi ciisa ibnu maryam saaxibu jurayj ninkii sawmacada laga dumiyey waa garanaysaan bay la tahay ee ninka arijirkaa islaantii uu u tegey ilmaha gogoldhaafkaa ka dhalay tiri ninkan caabidkaba iga dhalay inanka yaraayee ku markhaati furay ee caloosha ay dhabarka ku sidatay oo laba ah nebi yuusuf islaantii boqorku markay masabidday kii shaahidka ahaa inanka yaray aqalka jiifay ee markhaatiga furay iyo maxaan ku idhaahdaa inankaa hadda ilmahaa yaree islaantu xambaarsanayd maashidat ibnati fircown isagabaa hooyadii la hadlay marka yaa ummaah innaki cala alxaq hooyo xaq baad ku taagan tahay ha ka noqonin dabka galbi ku yidhi dabeetana dabkii bay gashay fircoon lafaheedii wixii buu ururiyey god buu ku rida wuu aasay gabadhaasaa marka udgoonkeedii baa rasuulka iyadii ubadkeedii ku shahaado qaatay ilaahay kelmaddiisa loo dilay fircoon ninka caynkaasu ahaa adduunyada heerkaa ka gaaray waa bishii ilaahay adduunka uu ka qabtay subxaanahu wa tacaala oo adduunyada ka xaadhay fircoon waa bisha tan weeyaan